anaga caawa farxad weyn bay noo tahay isku imaadkan caawa ay isugu yimideen xayaartan hor joogta oon u jeedo kulli oo ergadii ka soo qayb gashay shirkan dib heshiisiinta waxaan rabaa marka inaan idinla qaybsado 40 iyo waxaan dhihi karnaa muxuu ahaa bil iyo bar ka hor ayaa guddigan dib heshiisiinta la magacaabay waxaan go'aansanay inaan nimaado dhuusamareeb 45 casho ka hor ayaan nimid halkan taqriiban marka aan soo baxayno marka dadka oo dhan waxayna lahaayeen isku aadana galmudug waa meel dhib badan waa dad dhib badan meeshaas wax aad ka soo kordhaysaa lama arko waxaa intaana loogu daraya dhuusamareebna kuma sii jirto dhuusamareeb dhib gaar hay leedahay halkaa markaan isugu nimaday wixii ugu horreeyaan ku heshiina waxaa waaye inaan ka bixino kelimadii waa dhib badan tahay inaan meel iska dhigno waxaan dhahnaa galmudug ma dhib badna dhuusamareebna ma dhib badna dadka joogana ma dhib badna taa horta go-aankaasna isla qaadana halka markaan isugu nimay shirkeena ugu horreeyey qodobka labadan isla qaadanina waxay ahayd aayad qur'aana ayaa waxaan ka dhiganay slogan shicaarkii hawsha aan qabanayno aayadda qur'aanka waxaa waaye acuudu billahi min ashaytaani rajiim laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaahin bayna annaas micnaheedu waxaa waaye shiraaha isugu yimaadaaho iyo koodkood la tagaaho micno ma laha haddaan dadka khayrkiisa laga shaqeeya aan laga shaqaynayo ugu dambayso dadka in la heshiisiiyo marka waxaa ku jira halkaas marka meesha ka dambaysaa kasii muhiimsan marka intaas keliya ma ah waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaahi ruuxii intaa u sameeya isagoo ilaahay raallinimo ka raba fa sawfa nu'tiihi ajran cadiima marka guddiga qabanqaadadu go-aankaas waxay ku qaata shaqadan inay tahay ajran cadiiman inuu ku rabo sidaasana horta ayaan ku howlgalnay galmudug waa dhib badnayn iyo annaka ilaahay ajir ka rabna oo dan kaleetoodoo gaaraan ka leenaa aysan jirin intaa markaan ka heshiinay